Daawade, Mama HD waxaad ka daawan kartaa cayaaraha tenniska, ciyaaraha mootada, WWE, iyo ciyaaraha sida ugu badan ee caalamka laga daawado. Waa sida ciyaaraha Jarmalka ee Bundesliga-ha, waxaad ka daawan kartaa Super League Turkiga, waxaad ka daawan kartaa ciyaaraha dalalka kale. Ciyaaraha ugu muhiimsan aan daawano waxaa ka mid ah Premier League oo ka daawan karto waqti walba, League One-ka, La Liga-ha, waad u jeedaan League Portugal-ka hataa waa ka daawan kartaan. Waxaan maanta soo galay Manchester United iyo Leeds, wuxuu kuu sheegayaa waqtiguu soo galayo, sida 14 August ayuu soo galayaa live. Premier League, Manchester United ayaa home ah, Leeds Manchester United waxay ku qaabilaysaa gurigeeda Leeds. Waqtiguu soo galayo waa 8 saac oo duhurnimo, waxaa lagu diraa 2 saac East Africa. Premier League ayaa taabagelinaysa oo waxaad ka daawan kartaan Mama HD ciyaar live ah. Waa website-yada ugu wanaagsan ee laga daawan karo ciyaaro live ah. Waxaad ka daawan kartaan ciyaaro kale sida aad ogtihiinba La Liga-ha, Bundesliga-ha. Ciyaaraha maanta soo galaya ugu wanaagsan ee dadku wada sugayaan waxaa ka mid ah sida PSG oo Lionel Messi ku biiray, waxaa ka mid ah Premier League oo Sancho jooga. Ciyaaro badan ayaa laga daawan karaa. Mama HD waa website si online ah ciyaaraha usoo tabiya oona kuu suurtagelinaya ciyaar badan inaad daawatid. Hadda Liverpool vs Norwich waa ciyaar maanta soo galaysa galabnimadii, saa u jeedin waa isla maanta taariikhda 14 August live weeye. Waa Norwich iyo Liverpool. Norwich ayaa home ah, Liverpool ayaa away ah. Norwich waxay doonaysaa inay ciyaarta guul ka gaarto. Waqtiga soo galaysana waa galabnimada, waana Premier League oo waqtiga Premier League ayaa kuu taabagelinaya in aad daawatid. Ciyaaruhu way badan yihiin oo waxaa soo galay Real Madrid, waxaa soo galaysa Barcelona, waxaa soo galaysa Manchester United, waxaa soo galaysa ciyaaro badan ayaa maanta la dheelayaa oo Premier League, La Liga-ha, League One-ka. Hadda PSG waa kana League One-ka iyo Strasbourg waxay soo galayaan isla maanta oo PSG ayaa home ah. Waxaan rajaynaynaa in ciyaartu waqtigeeda aad ku daawatid oo live-ka ka faa'iidaysatid daawade. League One-ka ayaa la dheelayaa caawa 2 saac oo habeen bay soo galaysaa. 2 saac East Africa marka lagu darana waxay noqonaysaa 4 saac habeenimo. Waxaa taabagelinaya League One-ka, waxaana ka daawan kartaan isla website-kan oo kaaga dhigaya website-yada ugu wanaagsan ee si online ah loogu daawado ciyaaraha. Premier League, Liverpool waad aragteen way dheelaysaa. La Liga, League One-ka, Real Madrid waa kana caawa 3 saac habeenimo ayay soo galaysaa. Markii lagu daro East Africa 4 saac iyo bar ayaa laga yaabaa inay noqoto. Waa isla maanta Real Madrid ayaa away ah, Alaves ayay home ku booqanaysaa. Alaves kule waxay rajaynaysaa inay sii adkaysato guulaha ay ka gaarayso Real Madrid. Waana La Liga-ha saacaddu waxay soo galaysaa 9:00 fiidnimo. Markii loo fiiriyo East African waxay noqonaysaa 4 saac habeenimo. Waxaa taabagelinaya La Liga-ha, waxaana kala socon kartaan si live ah mamahd.pst. waa website-aha ugu wanaagsan sida hore nagu sheegaba aad wax ka daawan karto ciyaaraha oona ani ahaanteyda aan ka daawado. Wuxuu leeyahay qayb free ah iyo qayb bishiiba aad ku dhiibaysid wax ka yar mise $2 mise $1 oo si toos ah ciyaar walbo aad ka daawan karto. Waxay leedahay qayb lagu chatting gareeyo oo taageerayaasha loogu talgalay inay ka dhibtaan fikirkooda ciyaaraha Tottenham iyo Man City waad u jeedaan oo waxay dheelayaan si ogtihiinba beri. Marka Premier League weeyaan, maadaama ay beri tahay ciyaartu waa u jeedin Tottenham ayaa home ah, Man City ayaa away ah. Haddana waxaad ka daawan kartaan janaalo badan ayaa jiro oo niisoo tabin doonaa, laakiin hadalkan ugu xayeysan waa janaalkan oo live-ka ah. Isla janaalo kale ayaad ka daawan kartaan Bayern Munich iyo Mönchengladbach oo ayakana dheeleenba, oona waxaad ka daawan kartaan janaalo badan. Bayern Munich ayaa away ah.